doonaya inaan dib igu dhacday halkan aan ka sheegto anigoo cabanaya mujaahidiintii wadankan u soo halganteena ahaa dhaawacna wili dhaawacyadii iyo dibtiina aan ka bogsan waxa dhacday xogayaha dawladda hoose iyo inanka dhulka bixiya ayaa xidhay 7 cishaan u xidhnaa anigoo la xidhan oo la caburiyay ayaa gurigayga inta ciidan la kaxeeyay ayaa la soo dumiyay gurigayga wuxuu noqday gurigii Falastiin isaguna kaalinta shidaalka uu dhistay gurigiisuna guri xaq u noqday kayguna wuxuu noqday guri Falastiin ay guri dawladeed buu kayguna noqday kiisuna wuxuu noqday guri isagu leeyahay waxa jirtay oo kale caruurtaydii iyo ubadkaygii oo guriga ku jira waa laga saaray wuxuu ka haystay 20 askari oo budusha ka dhigaya oo waxba reebayn caaqilkaygii iyo inamadan u adeerkaaba u tagay war guriga ka daabal guuraha diminina wuu diiday xogayuhu intuu gurigii tagay uu soo dumiyay aniguna 7 cishaan u xidhnaa dharaartii 8aadna uu soo daayay markuu gurigii dumiyay xaaladdu markay halka maraysay waxaan u arkay arintaas in xaalad abuur ahayd xilliyadii campaign-kii iyo hurrumu ay socdeenna way ahayd nin weyn baan ahay maan degdegin gurigayga qoriga u yeelaa intaan ka dhimanayana nin dagaalami karayay baan ahay intaan ka dhimanaya xabad igu dhacayso nin ka dagaalami karayay baan ahay ma yeelin xal abuur inuu inankaasi sameynayaan arkay caruurtaydii iyo ubadkaygii markii la dhaxgeeyay askar caruurtiis caaqilkii iyo reerihiiba ka dhax saaray oo yiri ka baxo ha soo gelina meesha wax ficila iyo wax arina oon ka sameeyay arintaasi ma jiraan anigu ilaa maanta waan fadhiyay xanuunkii aan ka qaaday iminkaan soo kacay maantaan soo kacay oo ifka buu soo baxay dhiikar bay igu dhuftay allergic bay igu dhuftay dhakhtar baa la igu geeyay arintaasi haddii gurigaasi wada uu ahaa inanka agaasimihii qolana dayr buu doonayay anigana gurigayga dumis buu ku soo qoray xogayuhuna intuu cagafka haystay iyo 20 askari ayuu sidii wuxuu goday soo xoreynaya gurigiisa dumiyay waxa anigana Falastiin iga dhigay isagana ka dhigay Yahuudi Israa'iil anu ma garantaa hadduu taban aar weyn ku taal hadduu arrintiisu ay taban aar weyn ku taalo oo awood igu isticmaalay wallahi waxaan sugayaa maalintayda daraartii ay arqaladu taagnayd ee xaaladdu ay kacsanayd reerkayga iyo tolkayga waan joojiyay kama hadli kartaa ma goro arrintaasi caaqilkayga iyo dhammaanba war maanta ninka hadla lama maqlayo dhigalooma leh doorasha socota arrimo ka adag baa socda ma soconaysa arrintaasi maalinteeda aan sugno maalintii aan sugayo waa maanta arrintaasi waxaan doonayaa barastaafka gobolka taliyaha qaybta wasiirka arrimaha gudaha madaxweynaha inta wax garanaysa mujaahidiintii wadankan wax u soo noqotay ee si lagu tumanayo waxaan doonayaa maanta arintayda in hoos loo eego wallahi anuu intaan dhalayna waan dhalay intii aan soo cunayna waan soo cunay maanta tii taagan waa dhimasho amba cadaaladan helo waxaan leeyahay saxaafaddu aad bay mahadsan yihiin saxaafadda aad baan ugu mahadnaqayaa waxaad tihiin cabasho gudbiyaasha qofka dulman ayaa waxaan aad idinku mahadnaqayaa oo doonayaa inaad gaadhisaan codkayga si dheer si fog madaxweynaha qaranka wasiirka arrimaha gudaha inta wax kala garanaysa mujaahidiintii asalaam ee lagu tumanayo waxaan leeyahay arrintaasi sida degdeg ah looga qabso waxa anigana Falastiin iga dhigay inaan maxamuud cabsiyeena ka dhigay Yahuudi joogtay baashi taasan doonayaa arrinteeda haddii isagu awood u sheeganayo haddii Muuse inaabtigii yahay anigana ilaahay baa iyo inta wax kala garanaysa maanta waxaan u baahanahay cod dheer inta alla inta wax kala garanaysa inta nabadgelyada ka shaqeysa nabadgelyada waan ka shaqeeyay inayna dhibidhic waan ka shaqeeyay waan ka adkaysay wax walba arrintaasi waxaan doonayaa in arrintaasi codkayga si dheer iyo si hoos loo qaado madaxweynaha ku diiday isagu wuxuu dhisay halka baad ku celinaysaa kaarkaaga saayan
isagu wuxuu dhisay anu gurigan gelaya waa guri dawladeed anaa dhistay oo dalka markii la soo galay baan qol kaayaroo dunsan soo galay anaa dhistay oo guri nool ka dhigay dalka hala dhisaa la ilaaha la dumiyey dee lama odhan dhisa isagoo idaacadaha laga soo sheega isagu wuxuu dhisay maanta halka uu ku jiray kaalinta shidaalka waxa ay cajab waxa kaygana Falastiin ka dhigay kiisana u fasaxay iyana waa su'aal in la isweydiiyo baan way labadaba ma waxa leedahay waa dhul dawladeed kiisuna waa dhul kaasina waa dhul dawladeed kayguna waa dhul dawladeed waxa anigana kayga tumiyay kiisana sharci ka dhigay taasaan doonayaa cod dheer iyo cod gaaban in kastoo wax kala garanaysa wallaahi cid kastoo wax kala garanaysa taasaan doonayaa in cadaalad helo gurigaasi wuxuu doonayaa inuu cadaalad helo caruurtaydii bannaan bay daadsan yihiin ilaa maanta bannaan bay caruurtaydii daadsan yihiin inaan cadaalad helaan doonaya waxaan diinaa inaan carqaladi dhacdo doorashaa jirtay oo haddaan maalintaa wax samayn lahaa nin wax kale u jeedaan noqon lahaa anaa nin wax kale u jeedaan noqon lahaa carqaladda isagaa way ceebta isagaa doonaya in waxay dhacaan isagaa rabay anagu maana fartaada deersatay ma la oran karin markaad Muuse bixi doonto Muuse kulmiye bal ka waraad Muuse bixi markaan doortay nin wanaagsan baan doortay farteedana ma eersanayo ma oranayo farteeda eersanaya laakiin Muuse waxaan leeyahay waxaad noo soo dirtay Muuse Gabiley uma qalanto wallaahi inay Gabiley u qalmin waxaad noo soo dirtay si goor mana aamusaya intaan ka dhimanayo waan hadlaya Mansan Mandela Gabiley baan ahay waan hadlaya mana aamusayo ilaa intaan cadaalad helayo wax wanaagsan aad noo keenayso Muuse assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wada ay gaaray dalkan in la igu dhibo umaan doonayne in dadku dhibta ay kaga baxaan baan doonayay waad arkaysaa kuwana